dhowr isbuuc kadib waxaa guri mid aabahay wuxuuna ii soo bandhigay shaqo mid kamid dadkii way shaqeynayaan maqnaan dhowr maalmood sidaa darteed wax loo baahnaa qof shaqeeya sababtu aabahay shaqada soo bandhig waxay ahayd dhammaan gurigana ku xidhnaan camera CC aniguna waxaa ku takhasusay cilmiga kombiyuutarka aad baan u jeclaa shaqooyinka caynkan oo kale ah aabahay wuxuu ii sheegay ninkii inay siddan $200 labadii maalin baa ka shaqeeyay shaqada inta kadib aabahay wuxuu ii kaxay dhankay guriga si aan ula kulmo ninkii markaan nimid gurigii waxaan la kulmay ninkii si fiicanna wuu ii soo dhabeeyay wuxuuna iga xaalad bixiyay xaaladda guud ee guriga habeenada ka mid ah anigoo isticmaalaya kombiyuutarkayga ayaa waxaa la gaaray xilli saqdhaxa ah waxaan damcay inaan saxdo balse dib waxna u soo laabtay dhankay kombiyuutarka si aan u hubiyo xaaladda guud ee guriga anigoo indhaynaya waxaan arkay arrin argagax leh qof ka soo galaya dhankay daaqadda weliba xiran dhar madow aad baan u cabsaday waxaan eegay dhammaan qolalka kale si aan u hubiyo inuu ku jiro balse waan ka waayay si degdeg ah waxaan fariin u diray aabahay waxaan weydiiyey ninka guri iska leh xilligu imaan lahaa guriga anigoo la yaaban ayaa waxaan arkay asigoo soo galaya dhanka qaybta qolka fadhiga wuxuuna xidhnaa dhar madow inaan arko aad bay weli adkayd wejigiisa nasiib daro gacanteeda waxay ku dhacday agab meesha yaallay kuna dhacday dhulkii inta kadib ninku wuxuu muuqalay shanqar wuxuu isaga dhankay shanqarta ka soo yeertay anigoo afka ayaan isqabtay daqiiqado guda ninkii waa ka waayay meeshii balse aabahay firintiisa ayay soo gaartay wuxuuna ii sheegay ninka guri iska leh inay nus saac ka hor kala tagaan anigoo yaaban aad baa cabsanaya maxaa yeelay gurigan keliya ayaa joogay si lama filaan ah albaabkii uu soo gargaraacay ninkii albaabkii ayaan eegay dib ayaan usoo fiiriyay TV waxaan arkay si albaabkiisa xoog u soo gargaraacayo waxay u soo dhacay qorshe ah inaan kasoo baxdo dhankayga daaqadii ayaan kasoo booday anigu zayd baan u soo caro maxaa yeelay waan cabsanayay ninkii ay soo wacay guri iska lahaa waxaan u sheegay inuu guri soo galay nin xiran dhar madow isku dayin inuu dilo wuxuu iga codsaday inaan kasoo carro halkaa wuxuuna ii sheegay inuu wici doono booliiska way yimaadeen balse waxay weydiiyeen inaan arkay ninka wejigiisa nasiib daro maxaa yeelay ninka wejigiisa maana arag guriga mugdi buu ahaa asagana wuxuu naa dhar madow way ugu adkayd inaan arko wejigiisa